waxyaabo badan ay Soomaalidu ku maaweelinahay taas ka mid ah marka waxa laga baahan yahay waxa adiga inaad fikirto kaliya kadibna aad ogaato waxa aad ku fiican tahay haddii aad ogaato waxa aad ku fiican tahay in wax macquul ah oo kaliya ay yihiin in wax soconaya ay yihiin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن شافعي كورتي سيدو كلا يوتيوب channel ka daawanayso wa Shaafici Kurite fadlan dayta markuu soo subscribe nasar si aad u mid noqoto teamka Shaafici Group joogaalkan maanta iyo muuqaal cusub raalaha team Shaafici Kurite waxa waa bariyahan waa laga maqnaa fiidiyaal iyo xumaan soo gelin sida wada ogeedeen bariyi ugu dambeeyay waxaan ku mashquulsanayn dhalashadii saaxiibkay Ibrahim Romies halkan ka aragtanba waxa waaye sidoo kale waxaan ku mashquulsanayn filmaan iyo waliba inaan soo saarno waxyaabo kale oo project ah laakiin team Shaafici Kurite halkan ku xiran halkan mar walba iga daawado waxaan soo wadaa barnaamij yar oo kooban oo insha Allah aniga aan shakhsiyadeeda soo doyi doono kaas oo hubo ina keeli doontaan way jiraan sidoo kale project filmaan badan aan sameeyno laakiin ka baxo channelka Ibrahim Romies sidoo kale saaxiibkii Xamsan Muxsin xaq channelkiisa haddii mar walba kulleeyda teamana teamna fahmi kartaa mar walba xaaladaha ay ku wada shaqeeyaan iyo habka ay mar walba ku wada joogaan laakiin inta ugu badan ana asxaabteedu kulleey waad aragteen waxbay soo gelgeliyaan laakiin aniga waxa uu soo geliyo inta badan waa hawlo kala mashquulsanahay haday tahay macnaha xagga teamka iyo hawlo kalaba laakiin waxaan isku dayayaa barnaamij taxana inaan mar walba aan soo geliyo kaas oo aan hadda ku jiro hawlihiisa kaasna waxaan hubaa inaan ka heli doontaan haddii uu alla rabbi ka raali noqdo adigu waxay barnaamijkan uu bilaabo doonaa bisha Ramadaan dhexdeeda bisha Ramadaan hadaan bilaabin adigu before bisha Ramadaan hadaan bilaabin bisha Ramadaan dhexdeeda ayaan bilaabi doonaa insha Allah sidoo kale waxaan sameyn doonaa barnaamij kale oo bisha Ramadaan dhexdeeda ah oo ah yani caawi walaalka ama afursi sidoo kale waxa laga baahan yahay bisha Ramadaan ee lagu soo food leh inaan soo qurxoon oo wanaag badan aan ku soo dhaweeyno qalbi furan oo faa'iideysano qalbi furan sidoo kale aan ku macsalaamayno qaab wanaagsan ee waliba loo baahan yahay sidoo kale waxaan ka codsanayaa bisha Ramadaan ay barakeysan ina uga faa'iideysto familka wax kale dad qaban karin xataa ina caawiso familka hooyooyinka iyo waliba walaalaha gabdhaha mar walba Allah noo barakeeyo ku badan xagga inaad ka caawiso mar walba haday tahay barnaamijka cunto karinta iyo raashinka iyo waliba caawitaanka aad baan u mahadsantihiin dhamaantiinaba qaabka qurxoon ee mar walba halkan aad u joogtaan aad ugu xirantihiin miskiinkan indhaha burburan ee Shaafici Kurite iyo kuwa kale sidoo kale mar walba ka caajisan fiidiyaasheena sidaan noo soo daawado sidoo kale waxaan rabaa inaad ilaawin Instagram-kayga waa kan xariijiin doonaa inaad soo follow gari doonto waxaad ka heli doontaa barnaamijyo kale oo asna halkaas si live oo baxo oo ayakana aad xawaaye ka heli doontii oo funny oo yani barnaamij la dhaho iska isku xilqaan iyo kulay dadka daawado halkan ku xiran oo Instagram-kan ila socdo ayaa fahansan barnaamijkaas waa barnaamij isdhexgalka bulshada ee isbarasho ee ugu talagalay isna marka adigu waxa waaye mar walba waxa loo baahan yahay marba hadaa bulshada ku dhex jirto in aad samayso wax lagaaga daydo ama wax bulshadu ay kaaga daydaan sanadii ugu dambeeyay waxa jirto social media waxa loo isticmaalaa iska isticmaal wax la dhaho lama rabo ina wixii iska isticmaasho laakiin waa inay ka haraan wax macquul oo markaas ay bulshaduna kaaga dayo karto jiilka dambe hadda soo baxayana sidoo kale ay kaaga dayo karaan waayo waxtarkaagu waa inuu ahaadaa mid dadku ay mar walba xiiseynayaan wax walbana oo aad sameeynaysan waa in ay noqdaan waxa as leedahay maanta dadku wax tari karaan sidoo kale mid waliga aska dhaceen yani adiga hadda talent leedahay ama wax qabad aad isku aragtay samee do it yani samee waxaas haska dhaceen wixii adiga dadkii ma qarci doonaan badana dadkii wixii hadda adiga ay ku qaracday naftaada saa u qaracsantaa wixii aad sameysana aad ugu qaracday waxaas waxaad hubataa ama ogaataa 100% inay sida adiga ugu qaracday inay dadkana ugu qarci doonaan
mar walba waxaa jiro dad raba inay wax sameeyaan haddana caqabado badan ay ka hortaagan yihiin hadday yihiin dad niyad jabinayo Soomaalidu badanaa waxaa jiro qaab badan ay ku niyadda kaaga jabinayaan waxbaa soo saaraysa waxaa lagu leeyahay isnaasir waxaas wax soconaya maahan la imo waxyaabo kale si aan wixii isaga dhaafto taas ma soconayso wax kale la imo waxyaaba badan ay Soomaalidu kugu maaweelinaya taasaa kamid ah marka waxaa lagaga baahan yahay waxaa adiga inaad fikirto kaligaa kadibna aad ogaato waxa aad ku fiican tahay haddii aad ogaato waxa aad ku fiican tahay inay wax macquula oo kaligaa ay yihiin inay wax soconaya ay yihiin waa inaa waxaas aad ku dhaqaaqdaa sida ugu dhaqsiyada badan si waxaas ay waxa waaye waxtar u yeeshaan dadkuna ay uga faa'iidaystaan aad baan u mahadsantihiin sida qurxoon ee video daawashiisa uga faa'iidaysteen waxaan filayaa videoga dadku caajistay waan ka raali gelinaynaa adigaagan sida qurxoon noo soo fiirinaya indhaha waaweyn waana mahadsantihiin taasna kaftan waaye barnaamijka waxa waaye waxaan filayaa si qurxoon inaad u bagatay fahantay waxaan ka hadlahayo soo dhawow intaan ku kulmayna videogan iyo videoga xigo adinkoo caafimaad qabo iyo anoo caafimaad qabo waxaan kaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu